madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa howlo kormeer ah habeenkii xalay ah ku sameeyay saldhigyada ciidamada booliiska. xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dalka ayaa 10:15 fiidnimo ee xalay booqashooyin lama filaan ah oo u muuqanayay kuwa uu ugu kurgalayay xaaladaha saldhigyada ciidamada booliiska caasimadda dalka ee magaalada Muqdisho ku kala bixiyay saldhigyada ciidamada booliiska degmada Cabdicasiis, saldhigga ciidanka booliiska degmada Karaan iyo saldhigga ciidanka booliiska degmada Waabari. kormeerka ugu horeeyay ee madaxweynaha waxa uu ku hormaray saldhigga ciidanka booliiska degmada Cabdicasiis, waxaana madaxweynaha xaaladda saldhigga oo ku xog wareysanayay taliyayaasha ciidamada saldhigga, wuxuuna madaxweynuhu rogrogayay buugga dacwadaha lagu qoro ee oobiga saldhigga yaalay, isagoona hadallo kaftan iyo xog wareysi xaaladaha saldhigga ku saabsan oo la yeelanayay madaxweynuhu taliyayaasha iyo taliye ku-xigeenada saldhigyada ciidamada booliiska oo madaxweynaha habeenkii xalay ahaa kormeeray. kasokow howlaha booqashooyinka ah madaxweynaha shacbiga Soomaaliyeed oo ku marayay saldhigyada ciidamada booliiska degmooyinka Karaan, Cabdicasiis iyo Waabari, waxa uu madaxweynaha socod ku maray saqdi dhexe ee xalay wadada Maka al-Mukarrama, gaar ahaan wadada isku xirta saldhigga ciidamada booliiska degmada Waabari iyo hotelka Wehliye. madaxweynaha oo ku lugeynayay wadada ayaa dadka xilligaasi ku sugnaa hareeraha wadooyinka salaan dhex qaadayay. goobaha ganacsiga ee ku hareer yaalla wadooyinka laamiyada ah ee xilliga dambe ee xalay furnaa ayuu madaxweynaha mid u galayay, wuxuuna dadka weydiinayay xaaladaha amniga, waxaana madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqanayay goobaha ganacsiga ee ku hareer yaalla wadooyinka isagoona hadallo kaftan iyo maadi caweysa isugu jira dadka xalay la wadaagayay. ugu dambeyntii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo masaafo dhan 2 kiiloomitir habeenkii xalay ahaa socod ku soo maray saqdi dhexe, waxa uu ugu soo gabagaboomay kormeerkiisa si nabdoon, wuxuuna dib ugu noqday xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Cabdicasiis Ibrahim Axmed, OK TV-ga caalamiga Universal, magaalada Muqdisho.